nolosha iyo hadafkeeda. Why we are living? maxaynu u noolay? What is the purpose of life? nolosha tan maxay tahay? danta laga leeyay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay? rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysanno fawska. ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kullu nafsin daa'iqatu اlmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي قرآن كوحولي نف ولبوي جيريونسا نلشو تنلشوغا بحسيس عنيا مهما كان لديك من مال وسلطة ونعمة واتقي سبالي wax kastoo agtaada yaalla nooc kastaba uu yahay waad ka tegaysaa, waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay. wainnamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama waxaa laydin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyahy maalinta qiyaamaha. adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin, waa lagu dhadhansiiyey, wax weyn maaha. laakiin wixii aad shaqaysatay cimrigaaga aad ku bixisay, insaanku ra'su maalihi waa sanawaadku uu nool yahay. wixii aad shaqaysatay waxaa lagu oofinaya, lagu dhammaystirayaa aakhira baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala yowma alqiyaama. sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan eray yahay, faman zuxzixa can الnaar waudkhila aljanna faqad faaz. ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janno la geliyaa kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala. guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan. markaas aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaaةu اddunyaa ilaa mataacu اlguruur. nolosha adduunna ma aha mid kadsani waxuu bidhbidhsado mooyaane. yacni nolosha adduunyo waa mataac, laakiin yay mataacu tahay ilmaqruur, ku la kadiyey, ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan nafmooda. walidaalika ayuha alikhwa, kow markaynu wax qiimaynayno waxaynu leenahay the whole life aan eegno, noloshoo dhan. adduunku waa qayb yaroo ka mida noloshaada. maraaxil bay noloshaadu maraysaa. maraad caloosha hooyadaa ku jirtay, maraad yareedoo soo koraysay, maraad geeriyootay, maraad xabaal ku jirto, mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo, iyo dee in halkay ku gebagaboobaysoo ah laba meeloodoo bini aadamka loo qaybinayo meesha aad ka tegayso. ma jannaad aadaysaa mise naar baad aadaysaa? waa inaynu fahnaa markaa noloshan aynu joogno maxay macno samaysaa. qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa noloshan inay tahay imtixaan, waa mowducu ibtilaa. wax kasta oo nolosha intaad joogto kugu soo baxaana waa su'aal jawaabteeda la sugayo waxaad ku qorto.